وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتينا كسو دوادا جنال كان كحرو فخرجة هادو إبوينا إذ مامانتو حن إذين سو قدبين دونا برنامج كسابسن maxaa sababay abaaraha dalkeena Soomaaliya sidee loogu bixi karaa. inta aan u guda galin barnaamijkeena waxaan idinka codsan lahayn inaad nagu caawisaan share-ta, comment-iga iyo subscribe-ka waxay inoo tahay dhiirigelin. maxaa sababay abaaraha dalkeena Soomaaliya? sidaan u ognahay waxaa in badan ku soo noqnoqday dalkeena Soomaaliya abaaro taasoo sababayaan dhibaatooyin loo geystay deegaanka aan ku noolnahay. haddii aan ka soo qaadano hal iyo labo in la xaalufiyo dhirta, xaalufin lagu sameeyo dhirta taasoo dhirta loo isticmaalo in la gubo taasoo ay ka soo saartaan dadka dhuxulo. saameyn aad u weyn ayay sababi kartaa dhirtoo la jaro. waxay sababi kartaa in ay bey'adaas noqoto deegaan ku soo noqnoqda abaaraha. in dhulkii laga qaado waxyaabaha yareynayay daadadka. in webiyada laga dhigo meelaha lagu shubto qashinka, waayo webiga haddii qashin lagu shubo ma haynayo biyo fara badan oo awood uma laha in uu hayo biyo, taasoo ay sababayaan in ay fatahaad ka dhashtaan waa xilliyada aan biyaha haysano. waxaa kaleentoo sababi kara abaaraha soo noqdo in ay maamul la'aan jirto. waxaa kaloo sababi kara in ay wacyi la'aan jirto iyo isticmaalka dhulka oo loo isticmaalo si qaldan. waxaa kaloo sababi kara abaaraha soo noqda in dadka beeralayda iyo xoololeyda la soo geliya magaalada taasoo laga soo kaxeynayo meeshii deegaamadii ku ahaayeen. waxaa kaloo sababi karta in la siiyo beeralayda iniinyo aanan sii jiri doonin, aanan lahayn mustaqbal. iniinyadaasi taasoo la siiyo ay beertaan taasoo ay hal mar soo baxdo mar kalena aan soo bixinin. beeralayda waxaa laga dhaadhicinayaa in ay leedahay wax soo saar badan iniinyadani, kabacdeen marka ay beertaan ininta ay hore u haysteen originalkooda asalkooda u ahayd ee meeshii ka baxdo taa oo ah hal mar in la beerto bacdeen ayna mar labaad soo bixi karayn. taasna waxay sababi kartaa abaaraha oo soo noqda. dhaqaale yari oo soo food saarto beeralayda iyada oo waxa ay geliyeen dakhliga ay geliyeen beertooda ayna ka soo saari karin. taasna waxaa sababi karta in xilligii soo goosmada markii la gaaro in beeralayda lagu soo dejiyo waxyaabihii ay soo saareen qiimo yar in ay ku iibiyaan, u dhigmaynin qiimaha ka galay beertooda. maxaa xal u ah? in la sameeyo marka hore wacyigelin, in la sameeyo sharci oo lagu hortagayo dhibaatada keentay abaaraha. tusaale, in sharci adag lagu soo dejiyo dadka jaraya geedaha, taa oo haddii ay jaraan geedaha la ganaaxayo. iyo in lagu celiyo dadka meelaha ay deegaanada ay ku ahaayeen ee beeraha iyo xoolada ku dhaqan jireen. in marka dadka lagu celiyo waxyaabaha ay soo saareen qiimo u dhigma qiimihii ay geliyeen masaka badan in la ka helaan, oona la celiyo waxyaabaha soo galaya dalkeena mase la yareeyo. in beeralayda iyo xoololeyda loo sameeyo qalab ay ku horumarin lahaayeen xoolahooda iyo beerahooda. tusaale, mashiinada loo adeegsado beeraha oo lagu horumariyo, mashiinada loo adeegsado xoolaha oo lagu horumariyo. in dadka lagu baraarujiyo in ay nadiifiyaan webiyada iyo harooyinka taasoo ay ku keedsadaan biyo. iyo in la joojiyo dagaalaha sokeeye iyo dhiigga sharci darrada lagu daadinayo. sida aan ognahay marna waxaa jirto abaaro taa oo xoolaha iyo beeralaydii naga xaalufinayo.
marna waxaa jirto roobab fatahaadyo taasoo ay sababayaan in beerihii iyo xooladii ay baaba'aan. wax welibana waxa sida looga hortagi karo waa sharci. waxa marka ay sharci leeyihiin waxa fududaanaya in laga hortago. intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeeni ku saabsanaa abaaraha. intaa midkan mid lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. hanaga ilaabin sheerta, commentiga iyo subscribe-ka waxay inoo tahay